الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وفائدتي سديد إيا اللواتناد هي كتاب كيني الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله فائدة شيخو وحوه عدري أركان الكفر 4 أركانتا إيا تيراركا كفرغا إيا قالنمدو كتاغنتاهي وأفر أرمود وي kufrigaasi ama gaalnimadaasi ha noqoto mid mukhrijun cala almilla qofka ka saaraya islaamnimadii ama kufrigii nicamta ilaahay la qarinayay ee kufrun duuna kufrin mid ku rababa ha noqdo afar arrimood baa arkaan iyo u ah ay ku taagan tiirarka ay ku taagan tahay kufrigu waa afar arrimood waa kibirka iyo xasadka iyo qadabka oo cadhada ah iyo shahwada afartaa arrimood baa gaalnimada iyo kufrigaba tiirar u ah waa kibir isla weyni xasad iyo cadho iyo shahwo haddaba kibirku wuxuu diidaa al-inqiyaad in la hoggaansamo oo ilaahay awaamirtiisii la qaato loona hoggaansamo kibir baa yaa dadka ku diida xasadkuna wuxuu diidaa in naseexada la aqbalo qofkii kuu naseexay la naseexada in la aqbalo waxa qofka u diida waa xasad wey qadabkoo cadhaduna waxay diidaysaa alcadaala qofku hadduu cadhoodo cadaaladi ka suuroobi mayso shahwaduna waxay diidaysaa in cibaadada ilaahay loo tafaruqo oo lala yimaado iyo cafaafkii iyo dhowrsanaantii bay diidaysaa haddaba haddii la jebiyo rukniga ugu horeeya oo kibirka meesha hadduu ka baxo waxaa sahlanaan in la hoggaansamo oo rabbi loo hoggaansamo iyo awaamirtiisa haddii rukniga xasadku meesha ka baxana waxaa sahlanaan in naseexada la aqbalo haddii rukniga ama tiirka rukni markaan leen waa tiirka cadhadu meesha ka baxdana waxaa sahlanaan cadaalad in lala yimaado oo qofku cadaaladii uu ku dhaqmo ayaa sahlanaanaysa iyo tawaaduc haddii uu meesha ka baxdo shahwaduna waxaa sahlanaanaya inuu qofku sabro dhowrsanaado cibaadadana uu ku sabro lana yimaado ibnulqayim raximahullah hadal aad u cajab badan buu yidhi wuxuu yidhi wazawaalu ljibaali can amaakiniha aysaru min zawaali haadihi alarbacati canman buliya biha buuraha inay buurtu ka dhaqaaqdo meeshay ku tiilay ayaa waxay ka sahlan tahay afartan arrimood inay ka tagaan qofkii lagu ibtileeyey oo lagu imtixaamay yacni buur inay dhaqaaqdo oo booskii ay deganeed ay ka zuusho baaba ka sahlan afartan arrimood qofka lagu ibtileeyey inuu ay ka zuulaan mar kasta uu qofku ijtihaaduu camalka ku dadaalana afartan arrimood baa fasahaadinaya waa xaqiiqo wey mar kastoo rabto inaad wax injaaziso inaad wax samayso inaad wax fuliso waxa ku hor istaagi u fiirso afartan arrimood mid ka mida unbaa ku hor istaagaysa aafaadka iyo xumaan oo dhan waxay ka dhashaan afartan arrimood bay ka dhashaan afarta arrimood oo duuduubanna waxay iyaguna ka dhashaan jahliga qofku inuu rabbi jaahil ka yahay oo allah subxaanahu wa tacaala aqoontiisii uusan haynin naftiisana uu jahli ka yahay iyo tabardarradeeda baa afartooduna ay ka dhashaan ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbi haynaga zuuliyo oo haynaga badbaadiyo kibir allah haynaga badbaadiyo kibirka marka la tacriifiyo waxaa la yidhaahdaa waxaa weeye xaqa oo qofku iska kibriyo iyo ummadda uu xaqiro dadweynaha oo dhan oo kula liita kula yaryaraada adugu aad ka sarrayso ka caqli badan tahay ka cilmi badan tahay ka wax walba ka badan tahay taasaa kibirkii ka mid ah xasad ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga badbaadiyo rabbi subxaanahu wa tacaala cadhadana allah inaga badbaadiyo oo mid xaqa ina garab marisa
الله سبحانه وتعالى إنك بدباديو شهوة إلهي سبحانه وتعالى إنك من عنيس عبادتنا الله إنك بدباديو رب سبحانه وتعالى ربي هين أسترو ربي هين إلاليو ربي هين سوافجيو قول كينا هي عمل كينا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.